waxa ugu qosol badan dad maanta oo dhan kaa dalbada dad video way soo gelinaysaa about your culture taariikhdaada saas ahaan jirnay hadafka waxa weeye Soomaaliya one day saa ka fiican soo baxaya dad cumaan maxamuud bikent ninka dhan wasiirkan ka hadlayay cumaaniga Soomaaliya ka ahaan jiray macallin wuxuu ka yiri xalwad yani anu xalwadii dubi jiray okay waa ogolahay xalwadu way qasajay wadii ka soo tagana wasiirta fiiri fikradda kan bariiska waxa keenay carab xalwada carab baa keentay dharkii guntiinada wax walbo dhan way ku qabsanayaan platformada taga beertiisa waxa website dhan ay wuxuu ahaa dharka lagu xaysiinay dircida waxa yemen ba iska la isku sheegay cadani oo yemani caadiya wuxuu soo qoriyay taqaana af arabi wuxuu ku qorayaan hada dirc wa shalmad hadhowna ayaga baa jeesina xillihi hadhowna Soomaalida la sheegan doonta comment wuxuu ku qortay hatta subhanallah waxay sheegtaan al-gogara والدرع عربي معها والشلمد عربي معها جوجرت حتى ما وين وديس ايه اسكو شو بكون والله انا سو فري جوجرت بكو واحد يقول كل هلو انا اسكلا ايه كده بالوهاب الفيري because فيري ويسمو علشان ادبو افريكان باتاي دارك سكين طب انا واحد ما جيد اصلا I'm talking with my people about our culture حكو سو هري حتى for example level كده حاجه دقيقه حلوده هاد for example محل laga sameeyay عشان si ogaatid wadamada مثلا traditional food kooda ama traditional culture ama dhar in iyaga leeyihiin wadankaas wala daba galaa dharko kale for example kaliriisa la fiiriya dhirta laga sameeyo wadankan ka baxa bas taas ka shufaysa magaca iyagu ma leeyihiin language kooda ma yahay dadka xalwada in yar ii fiiriya xalwada iyo tumirta waa macmacaanida ugu qadiimsan Soomaalida cunaan even xalwada xataa waxa samaysan just arabta even turkida xalquun bay yiraahdaan material kaliftarkiisa su'aal aqliya حلوده حلقة صبية قصب السكر سكر زعفران ورينجو زعفران كالكا يردك مهم كو حوي ورينجو ده نشأ ليرا هذا سمع عربي إيو سكر لبضو ما كبحث جسير عرفت إسوش العمان وامي الكي كبحث الصومالي هلا جهلا كلمة حتى حلود وصومالي يقول حلوة بيقول لي هدول نحط حلويات عادي لانجوج كل يعني واحد تتوح ليرا هذا تبادل ثقافي كالتشر اللي اللي بدشوا ينو قف كان قف برتو يعني هذا مثلا سويدن بتشوفه وحيانا كبرنا waxa cuntooyinka aan jecelahay shad bullar iyo batata yani batata bahruus batatada ay ka dhigan sharbad iyo shad bullar waa hilibkiyo shiishiidka ama duqada ama fruunkiyo la kusoo kubad laga dhigo waxa weeye hadhowna la kariyo ama foornada la saaro very delicious way waa Soomaaliyeed hadda for example waxa uu eg arabtu xisabta kufta leena okay traditional food kooda way أنا مركز سوماليين جاي ودك يجي على واجي بريمو حلايها نوع سكولر بالعقل أنا بقول لك النوع سووا عنا وجرنا سو أذقفكم مركو وحنا ماشى كوها يسمع أما يهين شعوب بسكوت من هذا الصومالي نعيبك يعني هذا أوكي ضد كلا أجنبي أنا لا مرمى لكن قف الصومالي كلهم جرنا and he believe he's not Somali Somali لو كل شوجا وهم حتى يقشن كوب كاز مركز حتى هلا نقعد مدرس ليش يعني واحد بالله هذا Somali بالملل ثاني ضد كان مقدس كل أركب حتى إذا كسومالي عادي ما بتقدر إنسان ضدك عادي وحنا وين حتى الصومالي فيري كومنت كذا تبكشان بقول إلا ما تكومنت ولا سو جوابي قار حتى عماني ذي بالعينية علشان دراد فاشن غاز وكله عقلي قال هاي لا نقابني مضى يطقني مضى اسكدايا مروا بالتاريخ ذاك هذا الصومالي يقولون مسؤول ملك موتكي ها زوبا غيروا ورسلوا عماني صباحي ويب صومالي كوتشرو ضدكاسيو حيبها براوي دقنان شري اوكي كاسو بوسعيدي بدو كاميرا تاريخ الصومال عرفتي موجود انجليزكا هوانين لقي فيديو وبحصنين سواحلي كوست صومالي وحده ساحلي سواحلي سوق صومالي عقليس حتى تاع عمانه دود وترهدت ساكو تماديك سي وكتب عندنا ماشي هذا السؤال الطبيعي جاء جوابته سحوي عمانه محاكي يعني انجليز عرفت شو هدو رزقي الدون هيسو محاكي يعني جسي عرفت ددكي مانشري وبحرين عمان يمن ايغا بدغي ماشي كاجada dagaalka keenaysa ama inaadeerka soo dagaalay isagoo loo soo socdo buu cararay doonta hadhow wala soo dhaweeyay ama gaaja keentay doomaha iyagu cagcad yimaadeen maxay qorteen diib ba keenay maxay qorteen Portuguese macaalinay diin waa laga hor muslimay adigu masjid qiblateen ma haysatid Portuguese Vasco da Gama baba wiilkiisa lagu xabaalay Soomaaliya oo ilaa kabcadi la aaday dagaal Soomaalida warito kale halkee joogtay markaas maxaa sameeyay xalwad badubaysa Soomaaliya qaliil qasaysay حلود عيد حتى تدخل عقل قاله مركا إراهضو يعني كبرتقيس نما قوميسان هابي كلين والله
قال بنا حتى وحي أمسن هي سواحنا كهذا وفمش كوصل حلقون سواحنا كذا الصومالي لانجوج هي وأكتاي يونيك كل جن الدون كهذا يقف صومالي كهذا قفنا لا شيء جري ماله ويلا يابان قال بدن حتى ما كانوا كل الصومالي حنين كلمة أن فهمنا جرا يسبق يقول كلمة عربية كجدا ميبي أنا جنا علشان عربان كل شيء كلمة عربية استعمالها ودعي كرتا الصومالي بقول صح ولا ريال ميشان وحلا كلب الدلنيا علمي تاريخ وحان القرية وحان اسكدا وضيقان وريرسان باكو سوهري وضيقان عمانيga وديق سومالي جرو meelahaasi dadkaas walaal hadda maanta kalaraan lagu xisaabtama reality marka loo hadlo yani carabta maanta joogta kalarkii ka dambaysa yani as long aad kalar furan tahay adigu nasab waad sheegan kartaa wal soo dhaweey ida dunya blue yahay they will coming you wax ku leeyihiin yes adigu dhiigeeni baa tahay as long aad tahay dark skin ku marabaan anna ma aha in anagu ceeb qabna no ayaga saa u arkay adduunka annagana saasanahay hadda ku soo baxo qof مثلا afrika kale ama مثلا from asia ku yiraahdo ana Soomaali ba asalkayga ahay adigu waa yaabay soo yaa ku dhalay wuxuu ku leeyahay ancestor-kayga ma fahad adduunka dhan baa saas ah marka alashan dark skin wadamadaas meelaha waa laga yasaa marka sugu he wanted to prove Soomaali waa ninka soo qortay awoogiis inuu ahaa waal Soomaali كلمة اسميني فرنقية وهل الصومال معناه waxa weeye inuu ayaga zinjibaar bay deganayeen xeebaha Soomaaliya oo dhan dheer hadda dhulkii waxa weeye la kala gooyn wali ingiriisi Faransiisi Talyaani ibaan oo dhulka dibbilkiisa deganaa ilaa dhinaca Eritrea waan fadhinay marka xeebaha salka laga soo dago ilaa dhinacaan iyo Laamo intaas dhan wuxuu ku leeyahay hal nin baa hadhow ninka zinjibaar fadhiya uu hadhow qof ka dhigay waa maamul goboleedkii Soomaaliya kan uu amaad zinjibaar u fadhiya libicda yartaa soo qotarka kaasoo kale marka adduunka kula jooga xeebahan oo dhan adoo dhibic degan see u soo qabatay marka inta soo qabiil sile koonaysiya question weeye jawaabta Soomaali hadaan nahay annagiiba maanta heshiin la maqof ajnabi xaqi maado ku yimaado wuxuu kulli markaa noo sultaan soo degay war sultaan qaxa ma jiro boqol jeer baa u sheegada sultaanka sharaftiisa ku jirta wadankiisa sultaan ma qaxo boqor ma qaxo adoo boqor soo qaxdaa dad haday fariistaan doodna la fariistaan adoo waxaad sheegaysaan 0 macal dib dambe xataa account-ooyin ma furanayaan kastoodood wuxuu ku saleysan yahay waa jahli anaga inaga aaminsan yani iyaga nama yaqaanaan saltoonay inaan nahay ma garanayaan afgaar inaan leenahay ma yaqaanaan ina Portugiis iyo adduun iyo ilaa Ingiriis iyo Itoobiya iyo adduun dhan imbratoriya ka takhalusay ma garanayaan ee marka qaar waxa jirta marka u soo fashana xilada wallahi waa ina taariikhda dib loo fiiriyo لكن as long بين وضع social media علشان ما انت انا اقرا يعني on my page on Twitter واقرا واحد هذا ما انت هضر لا قاف صير بترول يلا لهي خلاص تاريخ كوقل ما سميريسا نو هيستوري اللي ما بدرو هيستوري ما يكبل ما مريو ملحنا لو ما دور ولا سكر history is history سلو يهوان اقبشا عادي انا قبل حنكون واقبلنا ما انت واقحنا قاعد نقول عادي برع بديت بان نقولني tourist قاربانغا very normal this is your history taas hadhow future ka dhigaysa qofka cusub oo adduunka la jaajan gareyn kara laakiin inta tirada may ma gaajoon waliba ma qixin wax baa xukumay yaa xukuntay ma Soomaalidan ayagiiba heshiila waligood xataa is xukumin waligood isku shuraan oo powerful sorry waa ku dheeraaday ajuraan oo very powerful Soomaali ma qaban history laakiin wadamo kale soo qabatay ee shidaasi Afrikadaasi adduunkaas oo dhacay ilaa India la Sri Lanka fadhiday because we are Somali take it easy استشيا صاحبي So today we're discussing the relations between Oman and Somalia, and I wanted to start off this interview by asking about the Omani Empire. How far did it extend, and what are the connections that were formed because of it? A lot of people, in fact, in Oman and everywhere else in the region, when we talk about Omani Empire or Omani influence, in Africa, people just assume one island, which is Zanzibar or probably Pemba, and maybe in some cases, they might mention Mombasa, Lamu, and so on. But Oman Empire starts from Mogadishu up north, the coastal area, going down to Kismayu, Marka, all the way to Mombasa, Lamu, Malindi. We visited, as I mentioned a
Comoros Island, really, which is about 3,000 kilometers off the coast of Africa. So Omani influence extends to thousands and thousands of miles, and I'm sure, you know, the listeners or viewers must have seen this beautiful map which shows in red the influence of Oman. So it covers many countries, it covers many cultures, and it lasted for centuries and centuries. And